waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiiyo cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghinan nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wa ilaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayno kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oon diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ghinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo kuu xasila. qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahay rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaadda markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqata dacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinu ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee, wuxuu qalbiga ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nebi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusanoo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi, nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay. cabdullaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay. markaasay aragto way la oyday iyadiina. markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi. markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya. anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi. uma intaa kadibna nunaji aladiina ataqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonnaa. wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi. dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa. iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen. nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna shaytaan allaahuma jannibna shaytaan wajannib shaytaana maa rasaqtana. markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi. taasaa ii kala caddayn. zuraarata ibni abi awfa raximahu llah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa. salaat alfajarkii buu tujinayay dadka. rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suuraة almudathir markuu gaadha faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowm casiir clى alkaafiriina hayru yasiir. halkaa markuu gaadhay khara calى alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata. gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albachi weeyaan. aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay daedna meydkiisiina gurigaa loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar. qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay. waxay tihi nin quraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay. anigaa carabiya ma cid kalaa? haa jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa. anigaaba qurayshiya ma cid kalaa? haa ummadda muxamed buu ka mid yahay. anigaa muxamede ma cid kalaa? haa waa cumar binu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa. kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay. wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic. halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray. 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin. qulubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun. butuun maxaan cunaa, maxaan fuulaa, maxaan qaataa, halkeen galaa, maxaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran. adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay? maya kama warqabee ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali.
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb اlcaalamiin razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba yeelo laka calaya risqaka waliya calayka fariidaة in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika xadiis alquds ilaahay baa leeyahay adigana faraa'id baan ku saaray anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi cabdii laka calaya risqak waliya calayka fariida anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii anaa arsaaqadaada ballan qaaday adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horayso in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika haddii adigu faraa'idaydi iyo waajibaadkayga aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaaqada kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaktinaysa ka waran haddii xubin jirhka ka mida fadhiisanayso shaqada joojinayso see noloshu noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii 5,000 oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markii ilaahay caasiyeen sidee noloshu noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiye ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad samaysay ma garanayo anugu ma qiil baan kuu raadiyaa buu yidhi ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa ma jiro buu yidhi qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyday naftaadii muu jiraa waar ma jiraa ma jiro maxaan sameeyaa aday ku taallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhane macsiye ma dayn karaysid ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu 3 arrimood baan ku odhan ilaaha aad caasinayso arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey caanaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey risqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee risqiisa u daa dee maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido mid labaad baan kuugu dari buu yidhi dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha un bay joogaan mid baan maalin number telefoon kala hadlo numberka caadiga wuxuu idhi iska goo buu yidhi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacayo wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi dibadda markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhanba waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska leh war hadda soomaaliya ka wada imanee markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furood soo gashay mise dhulkii unbuu ahaa cirkuna cirkumaad hoo socotay 15 saacaan diyaarad la soconnay 15 saac non stop samaduna sidaan bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay
هل قل وين الديود قل كأياس كله إلهي إن لقوا عابدا لقوا تلقلين إن لقوا عاصي لقوا ما تلقلين حرر كان يسقى عليه هدات العصيان كي سمد دين كريو وقكع دول كلا كو عاصي ودول كلا دون ده ما دعي كرتو ما جرتو ده هذا دول كيسي كو جوجا سيداد وقع عاصين كرتابو كيدي تصدحات ما كو قدريه مال وسن إلهي وسن كو أركين كل ما هلكا كو عاصي ما جرتا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار هبين مالين افتين مدو سريسو موجي عليم بذات الصدور يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع بصير ويان مخلوق ودن هدي أي ميلس ودا تاغان أي بريان وأفكوغ إلهي كبريان ومثل بباهيدي سإلهي وشيكتو مثل بإلهي سوتكي سوا مغليا باهيدي سن إلهي ندبولو أودي كرا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضمه يجيو بإلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يوسف الأرسنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك الساعة معصيتي قفلت كجري هدي أقوير يا عبادي كوا صالحين تتكرينا محاضو ملين مقعوق يري لها فرعون وأوجيها إنه قال يهي إنه قال لما كل من يوجيها إنه أهل النار يهي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسا كل هذا لقى يا بينه وانتوبوا إلهينا كبقوا صون نقضي وفرعون أولي الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال لبني إسرائيل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فرعون وكبروق وقو هذا الله لك وهلا يي هذه مركي موسى الله دري إلهي موسى كل يهي هذا الجلع سكون هذا تحود الدبرية كوي مسرفين تاها قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول عقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي ما كمر كون النبي صلى عليه الصلاة والسلام أيو تبي وداوي وحشي هذا كاب حسد الله يقول وكادونت كذبتك ويرى حيبتها لغو سو غاري سغو دمعسن با انو كسو طلابه جزيره العرب وارض الحبشه وسو غدبو مركا ساله وحشي ها رسولك الله بان كا ويديو كو يريا سبحان الله انيكا ما انو حمزه دلي وأذيركي دلي أو مشركة أو زنيستي صوت دين دين شيء يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو قفك إلهي غيرك عابدا إن نف بني آدننا قويا إيه الزنيسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أني قوان كل دعيه بل أرض محمد يسوي دي يبود الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كان مكو قوي مادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخرينا وحول إلا من تاب وشرد ككوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنكم مبوحين كريم بويدي شروط بدن بلس دبر دقة ماشي ويسون نقدر هذا آيات قرآن النبي صلى الله عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بالله أنك إلهي الدم بقى ينو دافع ما بدوني بويري هاي النسوق عجيب. وأني كأني كنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيو ووحشي وقاتل حمزة نقي حمزة دلي وياه مال انت النبي قادر كيلا دلي عليه الصلاة والسلام أنصار ميت كوكا الروسنيين النبي قال لي واكن أدير كان ميت كيسي وهو أركي هالكاسة لقد اللاعية حمزة على شيء زين لك لد اللاعية أيام مدغريها أوسكينا بنانك اللي قول شيريي كريه سي بيركي سنة عند اللي قول دادي مركز النبي أرجع جحي عليه الصلاة والسلام مركز الصحابة كويري ولا شيء سفيا صاصعته كأرجع جحي سي هري اسكو عليهم مركو ضدوا أبو رسول كويري قيسين توطوري لأن للما كدالة الرسول كنا مركز سويري يا عمي أدركي ما مغلى يا أو شهيد خلاص وحوري تضبعات قريشة أنا وين أكو أرجو أبو رسول كويري مركبا القرآن كاسودك وحيقة حي سودك تعايد الشك فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بالنبي قال له يدي هذا أرجو سنيسد وهذا أركا أو أرجو ديسد بإلهي كويري ده مدون باللقات دي لا أدوكنا مدون دشوا بإلهي كويري هذا صبرتين هي صابرين تصبر كابو خير بدن بإلهي كيري يعني حماسة إنكم قادم بلليه ليتخذ منكم شهداء أنك ضمعني بإلهي قاركين إن دين تقول شهيدان أدرك وحكم النقصامين وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بإلهي كويري أديك وحبك من ناقص من وحبك وزيادي لقى مرة بإني تولني ماذا يقبيالد أيكو قاده هذا دو أرجودي سنة دمدون باللقات دي لمدون دشوا هذا صبرتان بإلهي يري صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويري وحمزة نكي دلي ويا نك ونبي آياتها قرآن كقول بايدو صغر أيو آيات دي قدام بيسو نبي يقول صغر وحي هيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آيات القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيودي مركزان مكلا سوق لي مركب النبي الله هركان عليه الصلاة والسلام مركز النبي قرتي سكوا شهاتي مركب النبي يقول بل أدرك حمزة صاد مالين تودي شنو كشيك مركو كشيك يبي للمكدادة رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سويدي وهاجا وحشي إلهي با هداية كولا دونا كسو هديه مركا وجيغيغو كاركا ادركيبان حسوسناياي مركا حلقات كسدا صحابديدا ان wax barayo adigu xagga dambe iga fariisay buu yiri indhihiisu haday arkaan waxay xasuusanayeen adeerkii indhihiisu inay aragta ma jeclayn qalbigiisuna naar inuu gala ma jeclayn hada tabiicat al-anbiya sida indhihiisu waxshii inay arkaan aysan u rabin adeerkii buu ku xasuusanaya kadalika qalbiga muhammadna ma rabin inuu waxshii naar u ku dhaco fa ilaahay hanu toobad keeno isaga ina arsaaqaya hadana dadkii ilaahay way caasinayaan maanta waxaan haysanay isaga na siiyay
haddana waan caasiyaynaa yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay kiinnii hore kiinna dambe jiniya insigiin kiinayniigu alla ka cabsiga badan haddaad sidiisa iiga cabsataan baa ilaahay leeyahay mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan ibliis calayhi lacna haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum culamaau lxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi lacna sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey haddaad ilaahay u ii wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay milkigayga iyo awooddayda waxba iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi ilaahay innaka u baahan laa tanfacuhu الطaaca walaa taduruhu macsiya waa munaajaadkii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira hab lii maa laa yanqusuka واغfir lii maa laa yaduruka inaka anta اlwahaab yaa man laa taduruhu الdunuub yaa man laa taduruhu الdunuub kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow makfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow waa munaajaad markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaabuu ku ducaysan jiray marka طaacadduna ilaahay waxba uma ziyaadiso macsiyadduna waxba kama naqusto man camila صaalixan falinafsihi man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من شكر فإنما يشكر لنفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم بالقرآن كوفيرسو نفت هذا هذا هنونتنا نفت هذا هنونتي من تزكى فإنما يتزكى لنفسه نيجا نفتي سحمانتا كالطهرة ملاها حنحن النفط أفعنين كإلالية مساجد يا خير كلي ماذا نفتيسا dembiga naftiisa kaga maydha طaacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi man camila صaalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya ilahay waxba uma qabanayo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala inakaa ilaahay u baahan nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysaa lagu siiyey araggu waa nicmad maqalku waa nicmad wakhtigu waa nicmad islaamnimadu waa nicmad bini aadantinimadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad habeenku waa nicmad maalintu waa nicmad dhallinyarnimadu waa nicmad caqligu waa nicmad caafimaadku waa nicmad lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad amnigu waa nicmad وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عيسى بن مريم عليه السلام أيا أركنن لبدا قعمود هلكا كوغوان لبدا لغودنا هلكا كوغوان إن دلأو وحبنا عن أركين جركي سنة أي كود عذاب برس أو وضعد أو كود عيسنا يوله إلها وحن كو حمديا بلا يبدن أو أضومه سكود عذاب يقبد باديا نيجا وهنكي وأن لبدا لغودنا هلكا كوغوان labada gacmoodna intaa ku go'an indha aan lahaynoo waxba arkaynin jirkiisana waxaa ku dhacday baras wada cad yahay waxauna ku ducaysanayaa yuu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam baa ku yidhi oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi wuxuu yidhi waxa weeyaan dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa carabna way leeyihiin carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran walisaanan daakiran baa ilaahay i siiyey qalban shaakiran qalbi wuxuu ilaahay siiyey mar walba mahadnaqaaya iyo carab wuxuu ilaahay siiyey daakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa maxabadiisa jacayladiisa aanan ku hayn iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn
wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaha ka waashay ka kalea ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta uu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daawayn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxaa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan malagaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malagaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro waxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa uu leeyahay qaala inakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaryaysaan ood ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشى ديني جنة ديني حرية ديني الدون كاتكو سوق عادتين لحدن كي سنة أدوية أياد حقيقة مودين وحينكو سوق قديمتين وحن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa baritol aakhiraan tagaynaa arinii maada qadamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkaan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku u isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aadin siisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بتعالى هذا مر لباد بوكو علن إلهي جل وعلا سواش جوابتي بو كان يا إلهي مركابو كسي جيسان يا يولي هاي خذوه قادبوا إلهي ورانيا ملايكتي دي ملائك زبانية الليلة oo jirkooguba ka samaysan yahay naar jirkiisay qabanayaan yuri ibn Abbas meeshay qabtaanba way soo go'aysaa lafihiyo haykal ayaa hadhaya mana dhimanay dhimasho way dhamaatay kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab jirkii markuu ka dhacaba jir kala markiiba loo soo saaraya soo baxaya dhimashana ma jirto markaasuu argagaxaya meeshii la qabtaba way go'day gacanta la qabtay way go'day mid degtuu qabtay way go'day mid xaqan uu qabtay way go'day markaasuu alaa tarxamuun malaa'igtii buu leeyahay madina xariisanayn waa sida naxariis ma lihidino markaasay odhanayaan arxamur raaximiin kiiba kuma naxariisane naxariisad naga sugaysa annaga maxay tahay khuduuhu fagulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه محل عذاب يا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عرف حق المعرفة إلهي عظمتي سقلبي سميقل جنة نحرست إلهي بالله قلا ثم وحا لغو قلا إيمان نارتا وحا لغا قبت بادا إلهي نحرست لغا قبت بادا ثم وحا لغا قبت بادا وإيمان ما الله بحسن إني ما جرته مدنا يرانا الدنيا الجوغنا وحا الله إنو كيني ولا ليال إنا فهمنا ويان مسلم dadka kala sidooda ha u fikirin adigu waad ka duwan tahay adigu inaka jannadeenu waa aakhiro weeyaan shahwadeena adduunyada ku gudan kari mayna inaku addunya sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay 5 سنة الله حري أما 10 سنة الله حري والعياذ بالله كسوقات همي جيسوا محي قرمات كبح جلك قور كفكر مايو عيال جيسي كفكر مايو شقة كفكر مايو ضوف كفكر مايو هو الوالكيس وقوين ومحي إله ما شمرون كاسر لما دلين قد لقى مجرين قعن لقى مقوين كليه وحال لقى قال حريته ما لقى قبته بس qofka la xidhay maxaa laga xidhaa bali sheega xorriyadun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii uu haystaa biyihii uu haystaa weliba waxaa la leeyahay iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii lagu soo celin الدنيا سجن المؤمن وجنة سجن المؤمن ومؤمنك ومؤمنك وحاو دون وإيجين وحاو الربا وأركي كرين وحاو نفط دون ما دقي سكرو وحاو نفط دون تبعني كرو ماشى نفط عي دون تمجي كرو مر والبوح لي أنا الدون إلهي بان أبرقي سمر والبغاضنا يا سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرجك أيا غلام كيسي خرجك أوكيني أيا عنت أوكيني مالين مرقاس أبو بكر عنت دي اللقمة مركو كبضي أيا غلام كيسي باكوير يا خليفة يا أبا بكر أول وادي ويدين جرتد أورنجر تعطاها لك كنتي ما أنت واد سكع عنتها ما دي ويديسي مركز الحاجات كنتي زمن جاهلي ضد أنو صوفها لي فال ومش غايد أن كل هذا ما أنت مش غايد دي السوسية يو
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq saasuu farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi maanoo xadiidkii nabigeenna maqlay calayhi salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaa luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unbaa xaaraana bay ku odhan soomaalidu iminka gaajada unbaa xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la war waxaa diintu ma ogolaan wuxuu ku odhanayaa ma ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bulaacad socotaan nahay bulaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adhi iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa adu waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar u ina asturay عيبتني بو قريي يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مركو إله إلا مناجونا يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل إله قروح ليدي بنانك أصو ساريو والله عيبتيدا نقصان تيدا أنيك هدادي وقال لها يدين إما دقيستين لكن سترق إلهي بان يقولها الله يا إن يكون سترق إلهي بان مسكيته كفر دان يا الرحمة إلهي شيخ يحيى بن معاذ بها محدثين تبوها تابعين مركو دنتي أيام منام بالغو أركب منام دتك ون وناكسنا ويسركين موقتها دتك يمكن دوف بيكون رياض دوف سوق بدي كتل أبو تلياني قالوا كل ريون مد مركزون أنو والله وان أركانو يوروب قالوا واسيس عضايا سلامة والرياض هذا ركت من روم بعده وحي مسكح هذا كجرون بهابينك شيطان كوكاس ودح صاري دتي وناكسنا جنة أركيين وقيامها أركيين وإلهي وجهي سي أركيين علماء قاركود ركبة إلهي تدي سأركي هابينك مركز استحضام ركبة هابين والبنبي محمد لكل ما عليه الصلاة والسلام يحيى بن معاذ بكمدها مركو جيري ودي أيام منام لقو أركول لقول يا شيخ يحيى ننع واعدة ومحدثة وزاهدة وأمد جعشها هذا هيدا ما فعل الله بك محاد ربك كلكلة نوشك بالقويدي برك يا سوري فضحت والله فضح وكف فضح حضوب وكف فضح حضوب بنك قيامة وإلهي يقولي سوقبت يحيى كان والله هرجي يا إلهي مركز إلهي يقولي شيخا حن ما أنت عملك أكتيد الصور دقتي إد سلادها وتكبت باليسا شيخ بالويدي بودي مركزان يا رب لحية صد حج
ayaan carafo joogsaday oo agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan isiri dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafa istaagay iyo 63,000 oo khatmat alqur'aan intiiba markii laygu soo celiyey la yidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadanba hee adigaan ku imide bas waxaan garanayay inaan u tagaaya rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imide bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baan jannada ku galee dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buuhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buuhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay han u toobad keenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyaku laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka horaan ku baabi'inay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريقة الوحيد طريقة كلية ما أنت أمد أي كبت باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محكوها قاقي موياني أول كي أمدا محكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqay aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuulul amal hididila dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayna waxaa kaaga horraysa waan dhiman doonaa berri tola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiyo maanta طريقة الوحيدة طريقة كلية أمدو أي دينتا كسو نغن كرتا أي أمدو دينتا كوقبسن كرتا ومحي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو ودا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا سو ودا الصعدة أمدو كوبت بعدين كرنا مانتا إن المسلم كا دادك مسلمين تيواوينا أي جوغنا إن دعوة كسو قبنو دعوة ومحي ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaanka iyo cadaaladaan uga yeedhaynaa assumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa
آخرة ugu yeedhaynaa jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaalay culimada ku xidhma culimadaad ku daba liibaanaysaan hada huwa طريقة الدعوة inay diintu fido dacwada u sababa inay diintu baaqi noqoto cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajida u soo noqdaan gaaladana inta ilaahay hidaayada ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwada ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwadda hadda maaha dacwatani tan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxyaha magacoogii shaah macaan dhallinyaradeenii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka bayaanada ka jeedinayso waa tacliim dacwad waa maxay waa jawlaad inna laka fi nnahaari sabxan طawiila dabaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabaal dheer aayaddu waa maki awaa'il الآيات التي أنزلت على المصطفى في حياة مكية في سورة المزمل ويان ما قال هذا مكبد ملئ بدوا نبي قد احدى بالنا وابدي ومجتمع نيك اللغين يا برق اللغين يا نيك بد كده حجري الدبالنا يا اسكو صعد معها نيك برق اللغين يا حدو دالو عدعدو أي قبطو جيد هاد معان بو يغنو وكنا سن عدعدو مركا كجبتنا وسكا عرابي سو صدا معها والصير صير بلانك أو صعدا كبد كجري الدبالنا يا دباشا مركلي وجوجي كرا وامركو بدا كبحو هدو اسوغو بد وين كجرا ودباش جوجي ما دعي ان لك في النهار صبحا صدح يلا با تسنه نبي لغو يري ددال وحا نبي لا سيو لا امري لغا عبري دبال حسيحن هنسن همرغو هفرحن هقسلن saxaabadiisa kolkuu la jooga uu yadhoo la cadeynayay bas yadhoo la cadeynayay waqtigii baa noo dhowmaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabiray nebiga sal allahu alay wasalam dadaalkiisii dabaasha goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu yidhi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiq alaclaa ilaa jannati alfirdows maanta ay ugu dambaysay buu yidhi dhibaato dambe khalaas haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkuturis dhakhtarradii culammada mid ka badan injineeradii culammadana siyaasiyiintii culammadana soomaalidu horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadda inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu tiro badan yahay hoos baan u socnaayo ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaad 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhahdo salaym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray
callaama khatiiba oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaqa waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday. maskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof. markaasaa jamaacaddii maskiidkaan nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta, masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa, balaas waa la kala waayi. hadda imika sii diyaar garooba, masaajidka alaabtiina meel dhigta, balaasa sii qabsada. sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa 100 kilomitir baa khudbadiisa looga yimaadaa. haynoo geeyahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah maa nazaluu fii manzil, hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan. gurigiisii baan ugu tegnay markaas, jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi. waan gallay, khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay. waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa. markaasuu nagu yidhi min ayna? markaasaan ku yidhi min jabuuti. uu yaabay, jabuuti? ha, dariiqeed soo marteen? waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti, sanca, khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas. maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi, bal ii sheega. markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusina. maxaan u soo gallay? sheekh waxaan u socnaa baan ku idhi liislaaxi anfusina, uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina, iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno. uma waliixyaa'i juhda nebi calayh isalaatu wasalaam, dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii ee caamaduna adduunye u jeesatayna, inaan caamada u sheegno oon ku nidhaano dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa, culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya. markaasuu yidhi kalaam cajiib, wax kale uma iman wax kale, intaa baan u soconnaa. wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya. markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi. cajiib wuu kacay, sharaabkii buu noo dhigdhigay, kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa ni iman maskiidka iska socda. annagu waxaan leenahay ninkani su'aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa, talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq. cajiib. mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay, jamaaca iigu timiday buu yidhi guriga. waxay igu yidhaahdeen, waxaan ku yidhi maxaad dalka u timaadeen? waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada. waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada. islaaxu nafs, nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim. 10 kun oo qof oo maskiidka oo musalliina salaantooda bal ka bax waa kaase. 10 kun oo qof oo musalliintiiya salaaddii markii laga baxay aawe jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan. waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhahdo ilaahay dartii u bax, waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada. waxaad soo baranaysaa fadhiga maskiidka. ayaan dhaweyto jamaacada 40 cisho oo noo soo noqotay jabuuti, anuu markaska jooga. ayaan ka yidhi war aad 40 maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi. mid baa yidhi sheekh anuu salaaddiiba haddaan bilaabay buu yidhi. maalintay jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaaddiiba ayaan bilaabay. adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho. kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jiree subaxa igu adka, salaadda subax baa igu adkayd buu yidhi. salaaddii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii haddee toole. adna maxaad ka faa'iidaan yidhi dacwaddo. wuxuu yidhi anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi. horta xifdigii qur-aanka waan bilaabay, juscame iyo tabaarig baan soo dhameeyey buu yidhi. waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidon cilmiga barto. halkaa markay marayso mid baa sii ooyey. markaas war bal aamus aduha ooyna maxaad soo faa'iido? waa la aamusiin kari waayey. markaa waan yaabnay, annakii baan la ooynaba. maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay? amiirkii baan ugu yidhi may ma xanuunsanee u kaadiya. markaasaan maxaad la oydo, maxaad ka soo faa'iido? wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala. mukhadaraadku waad garanaysaan baan u malayn, waxaan maandooriyaha. hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi. wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi.
قف والبهلك وكبك ما كسو بوكسن مسك ما سو بوكسن هذا هو تغيير البيئة مددا بحلق ليها wax kala maaha بيئة غير وين بيئتنا تكون dhex jirto yar badil ده إن شاء الله هدي لنا قد البنا وانبحينا إن شاء الله ده هذا إن شاء الله ده هذا بس واحد لديهن مسكيت بري أنكو جوجنو أضيب عيديني ووعدي ناير مركو هريد وعدين إنسان آد بانو يردقي سنة لكن مركو الضمان كان نحنا بودي ومركبا نلو مركو قلق يبوك أتصوق على تاني لديهن يا إلهي درتو بحايا مركاسا كان نحنا بودي وعاني هذا بقى يدقي سوا كود أدير ninku markuu dhakhtarka tago isagoo xumaday ah soo jiran ayaa waxa loo sameeyaa irbadda ninka dhakhtarku meesha uu ku mudayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alcohol yar lagu tuujiyaa waa qabow wana macaan irbadina way daba taala soo ma hadduu yiraahdo ka war suufka yar aniga igu ekaysi ma bogsanaya maxaa la oranayaa war daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo خير بيننا مغضى الله يني زيادي الله يني بركايو إن شاء الله تعالى ذلك دينته يا علمك يا دعوة إنا كل من صوديا رومنهن إن شاء الله جماعة عدد إني ما دينا الله فريستان ودقي ستام ووقت جينا الله وحكسي سنة ديار ما ونهج دم بيجنا الله داف دم بيجا والدينتنا الله داف دينته الله إنه معانيو مرلكنا الله شافيو ميتاتنا الله ونحرسته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله